shir jiraayid oo xafiiskiisa ku qabtay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yusuf Derer Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda shuban biyoodka gobolka Togdheer wuxuuna isuduwuhu sheegay in 24 saacadood ugu dambeeyay xaaladda shubanka gobolka Togdheer ahayd mid marba marka ka dambaysa ka soo raynaysa isuduwaha arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii waxa kamid ahaa sida tan maanta waxa weeyaan aad iyo aad xaaladdu wanaagsan tahay xaaladii shubanku dadka ku jira cusbitaalka waxa weeyaan 64 geeriduna waa laba ilaahay ha u naxariistay 40 saacadood ugu dambeeyay waxaanu maraynaa heerkii ugu hooseeyay intii uu nagu bilaabmay shubanku maanta ugu yar tahay alxamdulillah rabbil caalamiin laakiin dadaalkii in la joojiyo ma aha in la sii laabo weeyaan nadaafadii laga sii shaqeeyo aynu faraxalkii sidaan u sheegnay in ku celcelinayno aynu sameeyno dadka in lagu haysto maaha guryaha qofku marka uu shubanka bilaabo si dhaqso loo keeno weeyaan waxa inta raacday in waxa loo baahan yahay dadka meelaha goobaha wax laga iibsado dadka leeyahay inay ilaaliyaan cuntada oo cuntada nadiifta ay ka iibiyaan dadka oo ay ka daboolaan duqsiga dadkana wax laga doonayo cuntada markay iibsadaan khudradda oo kaleeto inay iska maydhaan waxa loo baahan yahay guryaha in la nadiifiyo in jaafeelka la badiyo oo lagu maydho meel walba waxa loo baahan yahay dadku inay yareystaan booqashada ay ugu tagayaan dadka u soo dhaca shuban biyoodka oo ay iska ilaaliyaan ilaahay wax ilaaliye arrimahaas oo dhan haddii aynu ka shaqeyno haddii aynu sidaa u wadno waxa weyn insha Allah bidnaa karim waa ku guuleysanaa inaan xakamayno waxaan halkan doonaynaa ka faa'iideysto gabadh degan Atlanta Georgia dalka Mareykanka oo la yiraahdo Safiya Jir ayaa waxay noo soo dirtay $1,000 iyadana insha Allah bidnaa karim maanta ayaan ku wareejinayaa cusbitaalka sidii baahiyahooda ay wax uga tarto ومحمد إبراهيم بريتش تيفيق قرن كالسومالان برعو